soo dhawaada saaxiibayaal waa mar kale iyo weliba muuqaaladii quruxda badnaa aad ka daawan jirteen barta aan ku leenahay youtube-ka ee cawiif saa ujeedaanba idin baramaa ninkan maanta waxaa nala jooga ninka weynaa ee kaysar ahaa youtuber maanka ahaa marka maanta waxaan rabnaa inaan xogow ka hadalno ama isweydiino aan fikradaag yar ku sameyno saa ogtihiinba somalilan iyo soomaaliya waxaa ka jira qalalaasi yara ka jiro inta u badan ay dhalinyarta wadaan waxaan arkayay ninkaa saaxiibkay ma ka warramo laakiin waa fikradda waa isla wadaagi doonaa naag in gabar aan dhehe inay macaarado rabto macnaha ama calanka somalilan wax u geysta rabto hees soo kor saartay calankiio inay dhulka dhigtay lugtan ka bilowday meeshii ku qorneed calaamadda laa ilaha illa muxamad rasuul laa ilaha illa allah ay ku qorneed wiilka calaamadan ka bilowday marka maxaan is dhihi karnaa qabiilaadka iyo weliba midkan qurunkaas aan ku dhex jirno inay noo keeni karto in diinta waxyaalo looga baxay marka horta soo dhowo ku dhihi maayo aad iyo aad waaba meesha adaa wax ka aad iyo aad shuqul kuma leeyahay adiga meeshaan adiga ku soo dhoway adiga ama golow ama iska dhaaf adin soo dhow hal mar ma ku dhahay faham صح marka nin waxaan inaan falaqaynaa rabnaa aad iyo aad bal adiga horta maxaa ku sideed u aragtaa qabiilaadka iyo qaranka horta maxaa ku kala aragtaa waxay noo qeexi kartaa door hale niyo horta waa mahadsan tahay saaxiib cawiif janalkaadan waa ku dhowaa asxaabtaada qurux badan waa soo dhaweynayaa mar walbo oo qalbiyada wanaagsan صح horta su'aashan qabiil iyo qaran wax isu dhow horta ma ahan صح kaafi kala dheer wax la jiri waay horta qabiil waxaa waayo waa dad oo yar oon dawlad ahayn hayi aan ahayn aan maamulo weyn lahayn laga yaabo odo dhaqameed inay leeyihiin odo dhaqameed yar leh haa leh wahaa صح haddii qaran aad maqashana waa wadan dhan waa dad urur leh dawlad leh dastuur leh calan gooni leh calan gooni leh madaxweyne gooni leh صح صح oo aqoonsi leh waayo okay adoo maastaan marka shay aqoonsi lehna lagama dabageyn karo shay aan aqoonsi lahayn صح oo caalamka aqoonsi meelis markaan ku leeyahay aqoonsiga waxaa waaye macnaha adduunkan dadka ayaga ictiraaf isa siiyo صح ictiraaf horta minallaahi waa jiraa oo waa midka ugu weynba allahna siiyo amiin laakiin ictiraafka hadda anaga u naqaano ictiraaf aan waxaa waaye ummadda dhan adduunkan dawladda ka weyn صح marka qofkay ictiraaf siiyana ayaga macnaha la aqoonsiyaha macnaha qarannimo u ictiraafana qaran la dhihi karaa صح waxaa leedahay qabiilka marka iyo qaranka u dhaxeeyo farqiga u dhaxeeyo waxaa ka mid noqon kara inaan qabiil hadda aan la aqoonsan karin horta ana horta video adsiga hadda ma arkin oo gabadhaas ayada calanka ku dul istaagayso calankana uu ku qoran yahay laa ilaaha illa muxamad rasuulullah صح horta ani soomaalina waa soomaali somalilan oo soomaali صح labadooda macnaha waxa waaye dadkii waayo صح calankaas buluuga ah hadda oo gabadha laga yaabo inuu garab u saarnay kan ay ku istaagayna ay laa ilaaha illa muxamad rasuul ku qoran tahay kan buluuga u saaran doodka ay dhehayso Soomaali ana ka dhashay ay leedahay ana calankan ku faan ay leedahay halka laga taaga laga dhiso waxa waa hergiisu calanka ay ku istaag halka laga liiwa صح dadka wax intaas kala geeyo oo isku diri waxa waa siyaasad leh صح marka horta waxaan leeyahay ayadoo qarannimo iyo qadiyad la difaaca horta diintana yaan lagu gafin صح gabadhaas walaashay hadday ayda kaska ahayn astaghfar la imaado ha ka tooba keento صح oo macnaha hadday kaska ahayn waaba kaska maba ahayn waxaa ilaahay ka macnaha cafeelana tawxiidka ulama qasdiino qadiyad calanka necbeenaysiisa ku jirta laakiin tawxiidka ulama qasdiin صح waxaan leenahay ha iska dhaafto ama laakiin hadday tawxiidka ku qornay ul qasdiisi waxa waayo diinta waxay ka noqonay banaanka ka noqonay wala sax waa horta sababtoo ah istihzaa hadduu ku imaado ama gacilay ama kitaabka quraanka istihzaa haddaad kula imaado xitaa macnaha diinta loogu bixi karaa صح صح diinta shayga lagu soo gelayo waxaa waaye laa ilaha illa muxamad rasuulullah صح qofki asigoo istihzaa fududaysana istighfaar macnaha ku sameynaa hadduu ku istaago macnaha waxaa waaye diinta ka baxa diinta waa banaanka saan ognahayba ficil niyo iyo qowl waa laga gaaloobaa صح war haddaad niyisato 2026 gaalooba haddaad niyisato isla xaaladda taaganta diinta banaanka ka waa niyo صح qowl oo tiraada aniga ilaahay ma aaminsani waxaan aaminsanahay dadka dibiyada caabuda ilaahay inaas jirna aaminsan haddii dhadana od ku dhawaaqdana diintaad ka bax صح ficil oo ah qofkan inaad banaysato okol inaad disho صح ayadana ficil waa diinta looga baxaa waxaa lamid laa ilaha illa inaad fududaysato waa ficil diinta looga baxaa
marka saad ogtihiin ba dad iga caqli badan iga cilmi badan tihiin marka waxaan dhihi lahaa gabadhaas walaashay hadday qadiyad ahayd waxa qaaday inay iska dhaafto dadkaas waa dalkeeda waa wadankeeda waa qayb ayada ka mid ah jirkaaga kalama gala marka Soomaaliland waa qayb anaga naga mid ah waa dadkeena waa dalkeena marka waxaan dhihi lahaa dadka haddii qofka aad xumayso ama oo ku xumeeyo oo halku istaago aad si istaagto waa si fogaanaya waxaa loo baahan marka qofka inaad aad soo dhaweysato oo fogeyn marka dadkaas haday ayaga ay macnaha la rabin anaga jecel waa soo dhaweysina sababtoo anaga waxa laga yaabaa jecel in naga arkaan oo anaga noo imaanaan marka hadii halkay ay waxay falaan hadii falan waxa laga yaabaa inay si fogaadaan marka saaxiib macaan fikradiina intaas asxaabta awilkan halkaan ka salaamiya aad iyo aad aan marka anaga saaxiibkay cawiifan aan ku rijinaya okay niyo sax waay sa u sheegto waay waxa la yiri ninka hadal wanaagsan hadoo ka harumarana waxba ku maray dadku marna waa ku ceebay ninkaan hore waa hadlay marka qabiilkii iyo qarankana dadka aad isku qaldaan qabiilku waxa waay waa wax qoys ka bilowdo kooban oo yar waay oo wax weyn ma dham laakiin qarankana waa midka dham weyn oo aragtaan midada kalenta qabiilka in la difaaco oo bulshada kale wax loo dhimo wax weyn maaha laakiin in bulshada kale wax loo dhimo macnaha qabyaaladkan horta qabiil iyo qabyaalad iyo qaran ay kala tahay aan isku qaldan qabiilku waa gooni oo wax jira midada kale qarankan wax jira waxa la diidaa waa qabyaalada bas marka waxaan leenahay hadda waxa waay Soomaaliya ka shantahay labo waa walaale oo isla dhashay dadkaas waa anaga naga mid yihiin waxaan leenahay horta anaga dhalinyarnahay yaanu gafin dadkaas waa dad anaga naga mid ah cara ku jirto waana ka soo laaban doonaan hadduu Ilaahay ilaahdo yaa loo gafin midada kale inta ayadoo in loo geysto la rabo macnaha waxyaabo xun in loo geysto ama ayagu wax lagu yeelaynaa loo malaynayo intii oo meel looga dhicin gabartaasna waxaa leenahay dambigeeda Allah dhaafo haddii anaga bahada cawiif haddaanahay dambigeeda Allah dhaafaan leenahay dhammaanteen asxaabteena nasasaan leenahay mid kale waxa waay dadka kuwooda wada meelahan hadda mar rabo aniga waa soo arkay muuqaalkaas waan ogahay mar rabo hadii nabashan ka soo muujiyo sababtoo ah wax diinta hadda oo wax dhamay in biiskii hal mar ka soo muuqdaan mar rabi saas darteed meeshan aan u soo dhigo mar rabo laakiin waa soo arkay waa ka soo kacay meeshan soo dhigo mar rabo muuqaalka xig intaan kulmi doono waxaan fiisi tageynaa aniga Kaysar nabadgelyo aad ma